السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel kasta adduunka ka joogtiin waa salaamantiin. haddii aad noogu cusub tahay soo dhawow, haddii aad hore nala joogtay waa ku mahadsantahay la joogaaga. maanta waxaan ka hadli doonaa gabar walaasheena nooga soo codsatay in aan la talino. gabartu waxay leedahay waxaan rabaa in aad ila taliso. waxaan wada soconay wiil muddo 3 sano ah. wuxuu ii soo bandhigay guur, waalidkeygana ma ogolo in aan guursado ilaa aan ugu shaqeeyo, oo mar dhow ayaan jaamacadii dhameeyay, isla markaana shaqo ma hayo. ila tali, maxaan sameeyaa? maasha Allah, horta aad u mahadsan tahay sida wacan ee aad noola soo xiriirtay, waan kaaga mahadcelinaynaa. mid xigta abaayo hadal waalid lama diidi karo. mideeda kaleentana milkan muddo aad soo socoteen oo saa hore igu sheegtay oo 3 sano. marka abaayo walaahi way culeyskeeda leedahay markuu waalidku ogoleen, balse nabigeena sallallahu alayhi wasallam mar walba wuxuu amrayaa in oo la badiyo ummadda muuminiinta. sidoo kale guurkana ilaahayna uu sheegay. marka abaayo waalidka hal ahashiisana way wanaagsan tahay, oo raaligelinta waalidkana way wanaagsan tahay. marka abaayo walaahi xanuunkeeda leedahay, laakiin aniga tala ahaan waxaan ku siin lahaa waalidkaaga la hadal oo ka dhaadhici in adigu wax aad rabto. sidoo kale intana la fadhiiso, la saaxiib. mar walba waalidkaaga la saaxiibtid waa mar walba wax walba ay ku fududaadaan. marka waxaa ku leeyahay la saaxiib waalidkaaga, oo mar waliba waxaan ku habboon yihiin, waxaan ku habboona, waxaan ku fiican yihiin, waxaan ku fiicno. adiga laga rabaa in aad korkoraaleysid oo aad meel isla dhigtiin. mid xigta u sheeg wiilka adiga saaxiib kula ah intay saas ay wax u jiraan. kadib isaga uu la hadlay hala hadlo waalidkaaga, hooyada iyo aabaha waxna kama diidi doonaan insha Allah. mideeda kaleente alla bariga baa mar walba wanaagsan yahay. alla bariga badi mar walbana alla ku xirnaa. culeys markuu ku soo wajaho Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa u noqo. digriga tasbiixdan afkaaga ha ka joojin, oo wad mar waliba tasbiixso, mar waliba quraanka akhri, mar walibana alla xaqiisa ka bari in waalidkaaga dhankiisan oo quruxda badan uu ku soo aadiyo. mideeda kale intee abaayo way wanaagsan tahay walaahi. inaad guursatid way wanaagsan tahay oo wax adigu anfacaya in mustaqbalkaaga dambe. mideeda kale intee waalid hadduu meesha taagan yahayna waalid hadalkiisa xoogo waa laga rooyahay in amar diido lagu sameeyo. marka ha ku sameeyeen waxaa laga yaabaa inuu ilaahay xaqiisa marka aad barido oo aad xaq rabbi u noqoto, waxaa laga yaabaa inuu ku soo jilciyo oo qalbigooda dhankooda san uu ku soo aadiyo. marka badi abaayo alla bariga badi. mar waliba salaad aad tukatidna oo waajibaadka suno ku dar. sidoo kale tasbiixda, saliga nabiga, digriga oo mar walba afkaaga xiliga mashquulsan inta ku mashquuleed oo ka fikiri lahayd sida wax sameyn lahayd, alla xaqiisa u noqo oo bari Allah subhanahu wa ta'ala. insha Allah wuu ku fududaan doonaa. maasha Allah, saasa kuula talin lahaa abaayo. aniga taladayda intaas waaye. waalidka amarkiisa diidin ku dhahay, laakiin asiga la hadal ilaa iyo muddo xoogo amal 2 bil amal u qabo ama 3 bil amal. intaas alla bariga badi ilaahay mar walba aad barisid. culeys oo ka qaado, culeys oo ku soo saar ilaahay culeyskaas wadada kugu bedela. marka fudud ku soo saaran culeys kugu bedela. marka adiga mar waliba mal isku helaayo fudud. isku day in aad Allah subhanahu wa ta'ala aad bariso, asiga taladaada u dhiibato. habeenkii salaatul leil oo soo qaado. mideeda kale suuratul baqara baa faa'iido badan ay leedahay. badi suuratul baqara akhrinteeda ina fatax sidoo kale akhrinteeda badi. maasha Allah, insha Allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ku fududeeyo. asxaabteyda idinkan waxaan idin kala talin lahaa wixii fikir ah
anigoo fikir iguma wada dhamo wixii fikir aad haysiin inaad kala soo talisin gabadhan walaasheen ah oo xanuunka sheeganayso intaa midkan mid la'aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaano Allah isma dhaafno hanaga hilmaamina sheerta commentiga iyo subscribe-ka inta waxay inoo yihiin dhiirigelin insha Allah. Salaamu calaykum.